waxaan leenahay doorashooyinka socda waa mid u baahan in la bogaadiyo isla markaana lagu dhiirigeliyo in howshii si fiican u socoto oo gobolada dhan maamulada dhan ba si fiican loo soo shaqeeyo maadaama faraq weyn uu jiro waqti dheerna dadka ay sugayaan inay dowlad cusub ama xukuumad cusub loo dhiso marka waxaan leenahay waxaan ku dhiirigelinaynaa maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada inay ku sii socdaan ay ku sii siqaan ugu dambeyntii xilligii la qabtay howsha ay ku soo dhameeyaan ayaanu u rajaynaynaa insha allahu tacaala marka waxaa leedahay hala sii dhaqangeliyo qodobadii ka koobnaa 18 qodob gaar ahaan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran looga hadlay arrimaha hufnaanta iyo dardargelinta doorashooyinka saasan leenahay haddaanu nahay xisbiga samo haddaanu leenahay waxaan leenahay heshiiskii la galay ballamadii la qaday in oo si toos ah loo fuliyo ayaanu jecelnahay waddanka si uga baxo maxaa la yidhaahdaa gaabka siyaasadeed ama crisiska siyaasadeed hadda uu ku jiro siduu uga bixi lahaa ayaan ku talinaynaa in doorashada la gabagabeeyo xilligii loogu talagalay sidaas ayaanu samo ahaan qabnaa in howshiisaas u dhammaato insha allahu tacaala ka waran kaalintiinii doorashadii ka dhacday golaha shacabka magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland kaalintiinu lehen waanu qaadanay insha allahu tacaala waxaanan jecelnahay walaalahayna kalena sidoo kalena iyagana kaalintooda inay qaataan doorashadana soo dhameeyaan waddankana loo duceeyo dadkana loo duceeyo arrimaha hadda socdaan sida midda hiiraan ka socotana sidoo kale iyadana si nabadgelyo ah walaaltinimo ah maskaxdii ay shaqayso ayaan codsanaynaa xisbi ahaan in arrintaas aan wada hadal lagu dhameeyo ayaanu codsanaynaa haddaanu nahay xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ololeynta samo arrinta kale ee ku aadan cabashada ay muujinayaan beelaha qaarkood iyana maxaa baaq oo aad ka soo saarteen ee ku aadan doorashada cabashada waanu sheegnay doorashada horta dadbana la yiri maadaama magaca loo bixiyay baasan lahayn mid oo qof kasta raali gelin kara waxaan isleenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad la'aan dowlad xun ayaa dhaanta marka hore ha loo socdo wax alla wixii la xallin karana ha la xalliyo wixii ulees ku noqdona ha lagu fikiro in kaliya la helo dowlad nooc kastaba ha ahaatee dowlad la'aan dhaanta dowlad in sidii lagu heli lahaa lagu fikiro sababtoo waa dareemaysaa xaaladda maanta uu jiro caalamka uu ka jiro gaar ahaan afrikada bari meesha hadda aan ku noolnahay arrimahooda ma fiicna sida Ethiopia oo kale xaaladiisa intaasoo milyanna waa ku nool yihiin haddii ay sidaanu nahay ay dhibaato meeshaas ka timaado uleyskeeda dhibkeeda ma elin karno haddaanan anugu Soomaali ahaan dadku midaysaneen marka waxaan leenahay ha laga fikiro sidii loo heli lahaa dowlad sidii loo heli lahaa nooc kastaba ha noo ahaato anagoo qabiil ah yaalan lagu imaanin ayaan leenahay